kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada faallo yar oo hordhaca u ah jawaabta Dr. Zakir Naik uu ka bixiyey su'aal ku aadanayd inuu tabay dalkiisa Hindiya maadaama uu muddo uga maqan yahay eeda ay dowladda Hindiya u soo jeedisay eedahaas oo waxa ay yihiin aad barnaamijka ogaan doontaan sidoo kale wuxuu ka jawaabi doonaa su'aasha ah inuu u xiisay oo tabay dalkiisa Dr. Zakir Naik waa dhakhtar caafimaad oo Hindi ah kuna dhashay magaalada Mumbai ee xarunta ganacsiga Hindiya ilaa 1991 Dr. Naik waxa uu ku jiray faafinta diinta Islaamka iyo doodaha diimaha oo dhex martay shakhsiyaad kala duwan Dr. Naik doodihiisa kulamada uu qabto kaliya kuma eka Hindiya ee waxa uu ku qabtay meel kala duwan dad badan oo aan Islaam ahayn ayaa Ilaahay sabab uga dhigay inay diinta qaataan hay'adiisa dacwada waxay leedahay iskoolo ku yaala Hindiya gaar ahaan magaaladiisa Mumbai iyo magaalooyin kale oo Hindiya ah waxa kale oo uu leeyahay TV-ga Peace oo laga daawado caalamka oo idil inkasta oo laga mamnuucay dalal ay ka mid yihiin Hindiya Bangladesh iyo dalal galbeedka ah sanadkii 2016 ayuu iskaga tagay Hindiya kadib markii lagu soo eedeeyay inuu ku lug yeeshay lacag dhaqid iyo faafinta nacayb diimeed arrintan ayaa salka ku haysa isbeddelkii ku dhacay dowladdii Hindiya oo ay qabsadeen xisbiga BJP oo janjeera dhanka midig ama ah xisbi xagjir ah xisbigan ayaa aaminsan saraynta diinta Hinduuga iyo sida ay tahay in Hindiya lagu soo celiyo gacantii Hinduuga oo ay u arkaan in la barxay ama ay taariikhdeeda qaateen dad soo dulay oo diimo kala haysta siyaasadda hagta waxaa ka mid ah dib u Hindiyeyn iyo in la tirtiro dadka aan Hinduuga ahayn sida magacyada magaalooyinka oo dib loogu bixiyay magacyo Hindu ah sida magaalada dhacda waqooyiga dalka Hindiya Allahabad oo magac laga bedelay loona bixiyay Prayagraj magaalooyin kale ayaa la qorsheynayaa in magac laga bedelo oo magacyo diinta Hinduuga la xiriira loo bixiyo Dr. Zakir ayaa tan 2016 waxa uu ku noolaa dalka Malaysia oo uu ka helay deganaansho rasmi ah isku day Hindiya ku doonaysay in lagu soo xiro ayaa fashilmay waxaana booliiska caalamiga ee Interpol ay iska diideen inay u jaraan waranka guduudan ee lagu soo qabanayo Dr. Zakir oo dalkiisa dibad joog ah ayaa la weydiiyay in daltabay ku dhacday oo uu hiloobay dalkiisa Dr. Zakir ayaa su'aasha sidan u dhacaysa marka hore ka akhriyay telefoonkiisa kadibna jawaab ka bixiyay su'aashii iyo jawaabtiina sidan ayay u dhaceen Assalamu alaikum Dr. Zakir. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sohail Bhagwan from Maharashtra, India. Question: do you miss India? Assalamu alaikum Dr. Zakir magacaygu waa Sohail Bhagwan oo ka soo jeeda gobolka Maharashtra ee galbeedka Hindiya su'aasheedu waxay tahay miyaad u xistay oo tabtay Hindiya Dr. Zakir ayaa ku jawaabay sidan dabcan waan u xusay Hindiya dalka aan aad ku tabay oo jecelahay marka laga tago labada xaram ee Makka iyo Madiina waa Hindiya magaalada aan aad kugu xusay Mumbai waxaa jira sabab badan oo kala duwan Mumbai waa magaalo leh dhaqano iyo bulshooyin kala duwan aadna u dad badan waxaa Mumbai degan dadyow kala diime ah halkaas ayaan ku dhashay oo ku koray dabcan waan u xusay magaaladeedii Mumbai oon ku qaatay inta badan nolosheyda Hindiya waxay ku jirtaa dalal yar oo dastuurkoodu ku qoran yahay in muwaadin kasta oo Hindi ah uu xaq u leeyahay inuu qaato ku dhaqmo wacdiyo diintiisa muddo ka badan 25 sano ayaan Hindiya gudaheeda dadka diinta Islaamka ugu yeereeyay waxaana si darro ah in sanadihii ugu dambeeyay tan iyo intii ay dowladda cusub ay timid xukunka sanadka 2014 in xaaladda Mumbai ay ka sii dartay dhaqaalihiina uu hoos u dhacay waxaa baaba'day xabagtii duntii isku haysay bulshada waxaa jira khilaaf iyo tafaraaruq bulsho oo kala dhexgala bulshadii wada deganeyd waxaa jira dulmi badan oo lagula kacay dadka laga badan yahay si gaar ah muslimiinta tan iyo intaan ka tagay Hindiya sheekooyinka aan aqriyay iyo sida xaalku uu yahay waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu u gargaaro dadka laga badan yahay si gaar ah muslimiinta ها waan u xiisay Mumbai sababtuna waxay tahay in dadka Mumbai ay yihiin dad caqli badan kulamadii su'aalaha iyo jawaabaha aan qaban jirina Mumbai waxay halka ugu wanaagsan waxaan qabtay muxaadarooyin su'aalo iyo jawaabo ah magaalada koowaadna waxay noqotay Mumbai
labaadna waa Dubai. Dubai waxay sidoo kale leedahay dadyow ka kala yimid meelo kala duwan oo kala garaad ah, qaar sarreeya garaad ahaan, qaar iska dhexdhexaad ah iyo qaar hooseeya. Mumbai waxay uga duwan tahay waa inay leedahay cajaa'ibkeeda gaarka ah. Haddii aad daawatay YouTube-ka EBS TV, su'aalaha Mumbai way ka duwan yihiin kuwa kale, waana sababta aan ugu xisay oon u tabay Mumbai.